وسلم. وبعد إخوتي في العقيدة إذا وقت جينا هري وادو يريي أما صلاة كعشاء كهري وحنسكت لي موضوع عننا صوبان لغو أنكم أقعابي كرنا ذوق العبادة عند سلف الأمة. ذوق وددا عبادة سيدا يؤدد من شرين أمدي هراء مسلمين تاهي صلف كوحي نوغا مراد لأنيون والنبي عليه الصلاة والسلام هي الصحابة ديسي هي التابعين تي هي انت خيرك كر عليه الرئيسي وحين نقانين إلهي قرآن كي سكت الماميه كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة إذا خطابك كل عيه أما هذا الكوتوس مركا وجه الرئيس كل عيه أمدي تكسي مسلمين تاهي إلهي وحكت الماما يوم دا مسلم كينين خير أمة أخرجت للناس. دادكوي أخير بدنا الله صابحية دادك. والنبي قلت الماما عليه الصلاة والسلام كما يرويه الإمام البخاري في صحيحه خيركم قرني أما خير الناس قرني. والنبي عليه الصلاة والسلام شيئا إنه خير بدن يهي قرن جيس أما دادك إنه خير بدن يهي قرن نبي قلنا عليه الصلاة والسلام قرن نواجيل أما وفع وين داد نولاده أنا بربايدا وقف دادي انت يقاري كرتو ما بقول صنع ما كير بوا ميلهاون وحين لاني والنبي يقول لي قرن جايجا قرن وخير بدن خيركم قرني وحين لاني مركز وما حيدتك ندتك وحي كفضل الله وحا هوبنتيا إن يدتك كجه الريين رمين أي رميين ألا يا رسولك وحا هوبنتيا إن يدتك كجه الريين كلقنا أي كلق من وحي أي كسو قارين رسولك عليه الصلاة والسلام ووشاقي وحا أنشع لي ما أنت ينعن تلماما وحي إن بدن با laga warama laga yaaba say u jihaadeen in badan ba laga waramay sidii casiisiin u haayeen in badan ba laga warama laga yaaba say ummadaha kale uga sirreeyeen ama u maamulayeen ama gaalo u jabiyeen ama diinta u xoojiyeen. waxaan jeclahay inaan caawa ka waramo saaca min saacatihi hal saacado noloshooda kamid ah oo ah saacada ay alle kali ku yihiin subhanahu wa ta'ala ama say cibaadeysanayaan. waxa la arkaa inaga cibaadadeena ama dadkan dambe cibaadadiis inay inta badan tahay waxyaabo la akhriyo iyo afcaal la sameeyo ka maran mucdi looga dan lahaa. haykalkii salaada waynu haynaa kii soonka waynu haynaa kii xajka waynu haynaa hadaa muxuu raadkii loo baahnaa u soo saari waayay muxuu raadkii loo baahnaa u soo saari waayay. cibaadadu markay dhab tahay ee alla la xidhiidhku uu dhab yahay ee qofka muslimkii alla si wanaagsan uu ugu xidhan yahay marduud buu helaa ama wax ku soo noqda buu helaa. waxyaaba ku soo noqda waxa kamid ah xataa inay si kale u dhadhamiyaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim ba warinayaan wuxuu leeyahay thalathun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaan. saddex qofka ku sugan wuxuu helaa iimaanka macaankiisa. u fiirso iimaanku helaa lama odhan iimaanka macaankiisa baa la yidhi. taa macnaheedu waxa weeyaan iimaanku macaan buu leeyahay. wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saddexda qofka ku sugan uu iimaanka macaankiisa ku helo waxaa ka mid ah an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma. alle subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin kuwa agtiisa looga jacayl badan yahay looga kalgacal badan yahay wixii iyaga ka soo hadho oo dhan. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى ليلين قف ضدك ووتش على عضه إلهي درسي سبحانه وتعالى وكليه مسألة ولا الكهل كان كآخرين إيه. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إيه إنه أنعه
inuu gaalnimo ku noqdo sida uu u necab yahay in naar lagu rido saddexdan qofka sameeyaa baa la yidhahay si dhaba ka tahay wuxuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisii hadduu adiga kuu dhadhami waayo waa maxay fiika marad haddii dhadhanka la sheegaya lagaa waayo adaa bukaan ku haya maadadal kasta oo la dhadhamiya oo macaanuu ku jiro adiga haddii shaygaad wax ku dhadhaminaysa khalal fani uu ku dhaco iyadoo maadadu macaankeedii wadata baanad adigu dhadhamin karin hadday kaneeca kugu dhacdo afku ku qadhaadhaado oo malab lagu dhiibo malabku wuu wataa quality-giisa waa malab sidii baan u macaan yahay laakiin adigu markaad dhadhamiso bukaan kugu jira daraadeed iyadoo organku uu kiiyay wax lagu dhadhamin jiray carabku carabkiiyay inta wax dhadhamisa intii tahay ayaa haddana khalal faniyo kugu jira daraadeed waxaad dhadhaminaysaa wax kasta qadhaadh sababtu maaha inaanu shaygu macaanayn sababtu waxa weeyaan inaad adigu ku jirto khalal faniyo kugu jiro waxaan leenahay haddaad dhadhamin kari weydo macaanka kan haddaad naftaada ka weydo saddexdan uu nebigu tilmaamay qofka ku sugnaaday inuu dhadhaminayo iimaanka macaankiisa macnaheedu waxa weeyaan adigu kugu jiraa waxa kuu qadhaadheeyay arrintan ay kuugu cuslaatay macaankaasi waxaa loogu kala xoog badan yahay sida alle loo kala yaqaano alle subxaanahu watacaala sida loo kala yaqaano walidalik baa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau alle waxaa ka cabsada kuwa cilmiga le baa laleeyahay kuwa ilaahay tawxiidkiisa cilmi fiican u leh wasida daraaddeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay xadiidkii shaykhaynku warinayaan bukhaari iyo muslimba qoladii intay gurigiisa tagtay wax yaro fudaydsatay maa baalu aqwaamin yatanazahuuna can shay asnacu fawallahi inii la aclamuhum billah waashaduhum lahu khashya wuxuu sheegtay nebigu inuu ugu aqoon badan yahay dadka alle subxaana watacaala aqoon badnidu dadka ugu aqoon badan yahayna inay ka dhalatay inuu ugu alla ka cabsi badan yahay waxay leenahay dadku siday alle u kala yaqaaniin bay quluubtoodu u kala dhadhamin og tahay waxaan sharcigu sheegayo qaar baa dadka qalbigu engaga oo markuu engaga dhagaxa ka adkaada ilaahay baa qur-aanku le qasat quluubuhum fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa waxaan leenahay saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ahlu taariikh aw siyar markay warinayaan ama ka tilmaamayaan waxay yidhaahdaan niman bay ahaayeen maanti rag ah fursaan ah fardafuulla ah nolosha ka qayb qaatoo wax iska dhiciya ma ahayn dad hambaloo zaawiye yar fadhiyo oo wardiga u roga sida dadka badh ay u qaateen wardigu inuu yahay inta meel la fadhiisto tusbax dheer loo tasho dabeetana qawda uusan qadhiisa laga guro waxay ahaayeen dad nolosha ka qayb qaata oo dagaalama oo jihaatama oo shaqaysta oo xoogsada oo nolosha oo dhan dad hogaamiyay ahaayeen haddana may ahayn dad adduunya waashay oo maanta oo dhan intuu soo shaqaynaya habeenkiina kasii fakeraya berrita siduu u toosi lahaa ee salaada usii jarmaadi lahaa saacadda usii buuxsanaya oo hamigiisi wuxuu ku xidhan yahay oo dhan uu yahay berritaa shaqadii ka xabsaamaya ayahay mashquulinina waa inaan goor hore sii seexdaay alhamu kullu shaqadu ay qaaday shaqada iyo sidii loo qaban lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa maskaxdiisuba ay ku arjasgaraysanta ku xidhantay may ahayn waxay ahaayeen baa lagu tilmaamaa habeenkiina raahibiin bay ku sheegi jireen ahlu taariikh dad habeenkiina alle u go-a subxaanahu watacaala iyo si gaara ilaahay ula xidhiidha xidhiidh gaara alla la leh waxaan rabaa saacaadkay ilaahay hortaagaan siday u ekaan jireen inaan wax ka tilmaamno caaisha waxaa lagu yidhi alaswad nin la yidhahda caaisha wuxuu weydiiyey xadiidka imaamu muslim iyo tirmidiba waa warinayaan caaishaan waxaan weydiiyey buu yihi maa kaana nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam yasnacu fii beyti markuu nebigu guriga joogo muxuu qabtaa baan idhi beyt caaisha la weydiinaya markuu guriga joogo muxuu qabtaa waxay caaisha ku tihi qaalat kana yakunu fii mihnati ahli reerkuu u shaqayn jiray beyt markuu guriga joogo dee reerkii lala joogo reerkan shaqada buu qaybtiisa qaban jiray laakiin caaisha u fiirso waxay leedahay faidaa xadarat asalaatu yatawada wayakhruj ila asalaa salaada waktigeeda marka la gaadho intuu weysaystaa buu salaada u bixi jiray waxaan rabaa saacadan uu
caasho u shaqaynaya mar raba inaan ka warramo caawa waxaan rabaa saacaddan salaada tukanaya iyo nooc u eka waxaan rabaa inaan tilmaamno saxaabadii ridwaanullaahi calayhim la noolaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qaadatay qur-aanku isagoo cusub oo xagga alle ka yimi aragtay dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu uu gacantiisa ku tarbiyeeyey salafka maxaynu u leenahay salaful umma dadka way ka roon yihiin ardaygu kama soo hadho macallinka cilmiga macallinka oo qura maaha macallinka waxa laga qaata wax tarbiya la yidhaahdo oo cilmiga ka ballaadhan raggani waxay ahaayeen saxaabadaahi kuwa macallinkoodu yay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo isagu gacantiisa uu ku dhilay mid walba uu jafay waxa xuna uu leeyahay uu ka nahiyey waa aragteen waxa qur-aanka iyo axaadiista asbaabu nuzuul ku jirta waxaana asbaabu nuzuuli waa afcaashay samaynayeen saxaabada tani oo maalin walba la saxaya khata dhacayay hebel baa waxaan sameeyay aayad baa soo degtay hebel ayaa sidan tiri aayad baa soo degtay qola isqabato aayad baa soo degtay afcaal maalin kasta dhacaysay baa la jafayay oo dabeetana waxyigu uu saxayay raggani waxay dad kaga mudnaadeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tarbiyeeyey cidda macallinkiisii gacanta ku hayay uu yahay nebi moxamedna waxaad garan kartaa noocuu noqon karo waad imaajin garayn kartaa waxaan leenahay kuwaasi siday ahaayeen waxaan rabaa inaynu eegno saacaadka ay alla ka cabsanayaan ama nebiga la joogaan siday u ekaayeen waxaa kugu filan xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee uu nin saxaabada ka midi uu ku lahaa nin kale yacni waxaa la yidhahdaa xandala ayaan rajaynay inuu ahaa iyo abibakar ayuu yidhi war maxaad kuwaa barisato naafaqa xandala buu yidhi waa munaafaqoobe abibakar baa ku yidhi war waxaad ku hadlaysaa waa wax xune dabeetana qisadii buu u sheegay wuxuu yidhi markaanu ilaahay rasuulkiisa la joognana nooc kalaanu nay xaal baanu ku sugannay markaanu nolosha iyo mashquulaadkeeda gallana waxbaa iska kaayara bedelo xaal kale ayaanu ku sugannay abibakar wuxuu yidhi wallahi hadday dee taawantay waxaad sheegaysaa taa lafteedu xaggayga waa ka jirta waxaa loo yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi markaa waaladii nafsii biyadihi أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة طاعة وطاعة نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتو دارطي أيوح لي إله نفتيد قعنتي سكتشرتان كل دارطيه هدا كواري لهيدين waxa aa ku sugan tihiin marka aniga ila joogtaan ee zikriga iyo Allah xuska hadaa ku sugnaan lahaydeen malaa'iktuba waxay idinku salaami lahayd wadooyinka iyo furshaantiina korkooda laakiin xandalo buu nabigu yiri saaca wa saaca eraygan u fiirsaw nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam saaca wa saaca waa maxay ma saaca fi alxaraam wa saaca fi alxalaal ba يعني dadka badba marka la yiraahdo saaca wa saaca waxay u qaateen saacada in masaajidka la tago ilaahay la yara caabudo saacada damana waxa doonta in la sameeyo suuqa la galo maaha qofka muslimkii daa'iratul halal marnaba kama baxo waxa loo baneeyay marnaba kama baxo ee iyadoo xalaasha lagu dhex jiro ayay saacadna waxay yihiin saacadu qofku alle toos la xidhiidhayo oo nolosha adduunyo dhamaanteed madaxiisa ay ka maqantay oo heer kale uu gaarsiisay uu gaadhayo heerkaasi uu nabigu leeyahay hadaa ku daa'imi lahaydeen malaa'ikta bay idin salaami lahayd saacadna waa saacad qofku wixii loo baneeyay uu ku mashquulsan yahay ee xalaashaha ee loogu talagalay haday xoogsi tahay iyo haday reerkiisa u la ciyaaro tahay iyo haday wax kala tahayba waxaynu leenahay nolosha imika dadka waxa inta badan ka maqan saacadkan xalaasha caamka dadku inta badan uu iska haya laakiin saacadkaasi la tagsi kuma filla qofka raba inuu nolosha tan waajaho raba inuu ummadda tan ka saaro dulumaadka ku jirto raba inuu gaale iyo shaytaan iyo waxa raacsisan oo dhami ka hortago wuxuu u baahan yahay saacad gaar ah wuxuu u baahan yahay saacad maskaxdiisa adduunku ka maydhmo saacad aan adduunkani u muuqan dhammaantii intuu ballaciisu leegyahay wuxuu u baahan yahay saacad jannada iyo naartu ay u muuqato iyo alle subxaanahu wa tacaala faqat wax kale oo xisaabiyaanay jirin
saacaadka haddii la waayo nolosha hoos bay usii soconaysaa. saacaadkani waa saacaadka qofka muslimka ah oo ah zaad oo ah wax ku kalifaya inuu nolosha ka halgamo. waayo dadka kale markay himiladay dunida kala hayeen hore u waayaan weyn iyo jabaan, wax isdile iyo wax iska fadhiista iyo wax quusta, laakiin muslimku quustaba ma yaqaano. ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu leeyahay kuwa quusta waa kaafiriinta uun. laa tayaasu min rawxi illaahi baa layidhi. sababtu waa maxay? sababtu waxa weeyaan qofkani wuxuu si toosa ugu xidhan yahay alle subxaana wa tacaala. qofka alle xidhiidh dhaba la lihina quusta noloshiisa kuma jirto. waxaynu leenahay waxaynu rabnaa inaynu wax ka ogaano. xandale waxaa la yidhi saaca wa saaca, saacad ha jirto aada heerkaa malaa'ig salaankaa gaadhi karto, saacad aada caruurta iyo dumarka iyo xoolaa ku mashquuli kartaana ha jirto. waxaan rabaa caawa inaynu wax ka dhadhansanno saacadda tan alle ay hortaagan yihiin siday u ekaayeen. xadiiثuu warinaya ibni mardawey iyo ibn abi xaatim iyo ibnu xibbaan fii صaxiixihi iyo ibnu kasiir fii tafsiirihi, calaamat alalbanina uu ku tilmaamaya sanadka ibnu xabbaan inuu yahay isnaad jayid. uu leeyahy rijaalka sanadkaasi dhammaantood waa iqaat hayra yaxya bnu zakariya. yaxya bnu zakariyana wuxuu leeyahy ibnu abi xaatim baa wuxuu yidhi sa'altu abi canhu qaala laysa bihi ba's huwa صaalix alxadiid. albani wuxuu ku tilmaamaya xadiidka fii صaxiixihi silsilat alaxaadiis صaxiixa, waa xadiid xujo gala. xadiidkani wuxuu leeyahy caطaa ibn abi rabax waa arday ka mida ardaydii ibnu cabaas iyo taabiciintii waaweynaa ka mid a. caطaa baa wuxuu yidhi aniga iyo ibnu cumar, cabdillaahi ibnu cumar iyo cubayd ibnu cumayr, saddexdayadaasaa israacnay buu yidhi caashaan u tagnay radia allahu canha. caasho markaanu u gallay iyadoo xijaab noo dhexeeyo, ummahaatu lmu'miniin min waraa'i lxijaab unbay ka hadli jireen, iyadoo xijaab noo dhexeeyo ayaa caaisha waxay cubayd ku tidhi maa yamnacuka min ziyaaratina. waar cubaydow maxaad horta noo soo booqan weyday bay tihi, noo soo ziyaaran weyda. qaala qawlu shaaciri zurgibban tasdad xubban. gabay buu tiriyey marka wuxuu yidhi waxaan idiin soo maxaad had iyo goor noogu iman weyday bay caaisha weydiinaysaa. isna wuxuu leeyahay waxaan idinku iman waaye qawl waxaan xasuustoo kale buu leeyahy yani halkuu ninka gabayaagi ka yidhi marmar ibku kalkal, yani marmar soo ziyaaro kalgacalkaa badane. yani qofka haddaad raadka ku badiso maalin walba u tagto kaanamaa uu qofku kaa yaro kaanaya, laakiin dhowrkii cashaba markaad mar soo ziyaarato ee ziyaarada interval uu u dhaxeeyo ayuu nin gabayaayi sheegayay. taasaan uga dan lahayn buu yidhi. cabdillaahi ibnu cumar wuxuu ahaa nin aan kaftan badnayn. cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu ku yidhi marka hadalka naga dhaafa, kaftankana wadaan daaya, laakiin maxay yeela buu leeyahy caashu la hadlaya wuxuu leeyahy akhbarina biacjabi maa ra'aytahu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam. caashaay waxaad nooga warantaa waxa ugu yaabka badan le aad nebiga ka aragtay calayhi salaatu wasalaam. caaisha waxay tidhi way oyday markii nebi alle la xasuusiyey ayay oyday caashi, way sayn kari weyday. dabeetana waxay tidhi kullu amruhu kaana cajaba. arrinta nebiga oo dhammi wada yaab bay lahayd isaga, meelo gaaroo lala yaabaa ma jirine wuxuu ahayd arrintiisa oo dhammi wax lala yaabo. waayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yahay ummadda muslimiinta almithaali alxayi fii kulli shay. waa tusaalaha nool ee loogu talagalay wax wal oo nolosha ka midaba in lagaga daydo. sida daraaddeed wax walba qima najm isagaa ka ahaa. markaasay caaisha waxay tidhi arrinkiisoo dhammi wada cajab buu ahaa. arrin bay ka warramaysaa markaa caaisha. ataanii fii leyla, habeen buu ii yimi bay leeday ilaa jidhkaygu jidhkiisa uu taaftay. dabeetana wuxuu igu yidhi bay tidhi caaisha darinii atacabadu lirabbi. caashaay caawa maad ka kay dhaafi aana la caabudaye. caashaa waxay leedahay habeen buu guriga yimi, dabeetana markii jidhkaygu istaaftay ayuu wuxuu igu yidhi caashaay caawa maadi dayn aan cibaadayste. caaisha waxay tidhi wallahi inii la uxibu qurbak wa inii uxibu an tacbuda rabbak. wa fii riwaaya
إني لأحب قربك وأحب هواك. عائشة waxay tiri ilaahi rasuulkiisa wallaan ku dhaartay waan jeclay dhawaanshiyaha geeyana kugu soo dhawaado waanan ka fogaanin waxaan kaloo jeclay bay leedahay waxaad jeceshay inaan ku yeelo wax kasto adigu aad doonayso aad jeceshahayna iyana waan jeclay inaan ku yeelo. nabigu uu istaagay calayhi salaatu wasalaam dabeetana qarbad yar ama weelkan biyaha lagu shubtay harag ka samaysan oo meesha yaala ayuu ka weysaystay biyo badanna kuma weysaysan salaad buu isu taagay فبكى حتى بل لحيته. صلاة مركو استاغي أي النبي أوي عليه الصلاة والسلام إلا يقد كيسو المدو قدر يطيب وهنتو أوي. روايات كقاركود وحي شاغية حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه قنت جاي وهنتي قاد والنبي الميني عليه الصلاة والسلام ثم سجد فبكى حتى بل الأرض وسجود النبي إلا يولك قوي ثم اضطجع على جنبه فبكى لنا عبوه شيف تضي سقولي يا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة تكني نبي الميني انتو تكني انتو تاقناو الميني انتو سجودي الميني مركو لنا عبوه شيف تضي الميني isagoo xaaladii sidii ugu jira ayuu u yimi muadinkii Bilaal oo leh salaadii subax ay gaadhay ilaahi rasuulkiisiyo wuxuu weydiiyeen markaa rasuulka ma yubkiika waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wama ta'akhkhar oo maxaa ka oohiyay baa ilaahi rasuulkiisiyo dambigaaga oo dhanba isagoo ilaahay dhaafay adoo qof dunuub oo mamoonayo ku ooyayaba ma tihide maxaa sidatan ugu ooyday baa la weydiinaya wuxuu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam riwaayadka qaarkood ku sheegaya fala kuna abdan shakura laakiin wuxuu xadiiska nabigu ku tilmaamaya way xakiya Bilaal wama yamna'ani an abki maxaa ii diiday buu nabigu yiri inaan ooyo iyadoo xalay laygu soo dajiyay aayaadkan ilaahay leeyay inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كانت النبي وآخره عليه الصلاة والسلام. ولي بلال وسيديبانا نؤوين يدو حالي قرآن سودقي قرآن كسودقي وحو شيقي يا أبو النبي وخت المامي عليه الصلاة والسلام إن إلهي لي سمضة أبور كيدة يدلك أبور كيسة إسكجدك هبينك يا مالنته وحا آيات أما وحقاضشو أما على مدوغ السجين دتك عقل له كلية أولي الألباب كوكا لو اسكرنا صارونا وعد عندي بصبح ضيع عركي بتشوقون واوي داكتان آيات وحي يوغو السجين كو عقل له يا عقل لما كابي سويدين تله وحي إلهي كتلمامي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقوة حالات كودة أولا إلهي عابده سبحانه وتعالى هدي تاغيين إيا هدي فرديان إيا هدي شيفان با إلهي حسكي سؤال مرنا بكبحين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مسلم هو فكره وحال لي وحي كفكر يا نابورك عرك يدلك maxaa fikradani keenaysa istintaaj ama natiijo ama go'aan abay gaarsiinaysa waxan inaan bilaash loo abuurin xagee ka yimaadeen dabeetana wuxuu garanayaa in maalin la xisaabaya ay jirto oo wuxuu leeyahay ilaahay oo cadaabkaaga naareed naga nabadgeli mu'ahilaat muu sheeganaya marka uu ilaahay ku weydiisanay in la cadaab kaga badbaadiyo saashay weydiinta le waxay maxaa nabiga habeenkan u muuqday calayhi salaatu wasalaam oo sidan ugu ooyay muxuu gadhka iyo gadhkiisu oohinta ula qoyay muxuu dhulku ku sujuudsanaa u qoyay muxuu meeshuu jiifsaday u qooyay nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisuna sidoo kale bay ahaan jireen mid ka mid ah la yidhahdaa habeen aayad siduu ugu celcelinayo habeen dhan buu aayad ku tukan jiray si ugu celcelinayo maxay dadkani sidan ugu ooyayeen
ma aakhiru nebigu ka warwarsanaa iyadoo ilaahay qur-aankiisa ku leeyay walasawfa yucطiika rabuka fatardaa ma aakhiru ka warwarsanaa isagoo ilaahay ku leeyay inaa acطaynaaka alkawsar iyadoo waxaanoo ballana alla siiyey subxaana wa tacaala ilaahay baa u ballan qaaday alkawsar webiga kawsar la ydhaha xawdka ee jannada ku yaalla inuu leeyahay ama khayr badan inuu leeyahay allah u ballan qaaday subxaana wa tacaala inuu raalli noqon doono ma ummadda quruu u warwarayo o u ooyay oo qisadii ku taalay saxiixu muslimka waa tii sheegaysay inuu nebigu maalin akhriyey aayaad qur-aan oo xasuusta u akhrinayo ambiyo hore ka warramaysa in tucadibhum fainahum cibaadak wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim iyo aayaddii kale ahayd faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim laba nebi buu xasuustay oo nebiyullaahi ibraahim iyo ciisa oo ummaddoodii u warwaraya oo kuwii xataa alla caasiyey aada mooddo inay leeyihin ilaahow haddaad u naxariisatana adigaa ah kii dambi dhaaf badan markaasuu nebigu ooyey calayhi salaatu wasalaam ummaddiisii markuu xasuustay dabeetana gacmuhu cirka u taagay isagoo leh allaahumma ummatii allaahumma ummatii dabeetana wuu ilmeeyey xadiiskaasi wuxuu sheegaya subxaana wa tacaala isagoo og maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ooyayo oo uu ku yidhi dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi ya jibriil idhab ilaa muxamed faqul lah inaa sanurdiika fii ummatina oo kugu xumayn mayna baa la yidhi subxaana wa tacaala waa laga dejiyey haddaa ragga oohintu ma qurux bay ku tay ma mamduux baa ninku inuu ooya ma wax la ammaanaabaa dhibaatooyinkii mashkiladdu markay dhacdo ninku inuu ka ooyaa ma wax ammaan leba waxaynu leenahay caalamkao dhami wuxuu ooyaa markuu xasuusto cadamata rabbi alla weynidiisa subxaana wa tacaala insaanka daciifka ahi markuu isgartay inuu hortaagaya alle subxaana wa tacaala kownkan dhan ee aanad waxba ka ahayn allihii abuuray weynidiisa markuu xasuusto ayuu qof kastoo muslimi ooyaa wuxuu ooyaa qofka muslimkii markaanu garanayn mustaqbalka dambe majhuulkaa wuxuu noqon doono wuxuu ooyaa qofka muslimkii markuu xasuusto inuu ilaahay la hortaagi doono wuxuu ooyaa qofka muslimkii markuu garto maalin kasta dhacdooyinkan uu samaynayo in la weydiin doono ardayga yari wuxuu warwaraa marka sabjiga uu ku yaro cuslaado ayuu islaa salow imtixaanku muxuu noqon ka jaamacadda ku jira marka uu koorska la siinayo 4 buug 8 buug uu noqdo ayuu yidhahdaa wallahi sanadkan waxba garan maayo mushkilad baa haysato koorsa aad u tiro badan baa la siiyey 8 buug baa la yidhi soo akhri 8 buug buu ka warwaraa laakiin bal markaad xasuusato every second of your life waxaad qabatay daqiiqad kastoo noloshaada ka mid inay recorded tahay oo weliba amaama allahi inta lagu soo taagayo oo amaama annaasi lagu taago in lagu weydiin doono every second of your life waxaad qabatay muxuu qofku markaasi dareemaya markuu garto inuu ilaahay sor taagayo ilaahayna inuu isla hor taagayo wuxuu soo qabtay noloshiisii oo dhan aan waxba lumin ee wax waliba ay qoran yihiin waxaynu leenahay dadka muslimiintii waxay ahaayeen markay cibaadada u dhaqaaqayaan saacadaan rabay waa saacadaasi dad aad uga fakara meesha ku socdaan insaanku waa la ogyahay mustaqbalka inuu ka warwaro waliba markuu mustaqbalku wax weyn agtiisa ka yahay مثلا haddii maanta lagu yidhaahdo madaxweyne aad la kulmaysa maanta haddii la yidhaahdo kanada ninka haysta berri la kulmaysa qofka la yidhaahdo madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha waddanka aad la kulmaysa muxuu ka fekeraa markaad berri ballan la leedahay appointment salowkee ku fiican ma koodhkan yabaad ku xidhataa iyo taygan in badan waayo mawqifka uu tegayo ayuu qiimaynaya wuxuu ka fekeraa maxaad odhan doontaa marka lagu yidhaahdo dadweynahaad la hadlaysaa ee halka kaalay ninka muxaadaro yar diyaarinaya ninka dad sile la hadal ninka odayaal sile aad arrin wada wadaagtaan maanta oo dhan wuu fekeraa wuxuu ka fekeraa maxaad tidhaahdaa hadalka halkaad ka bilowda markaasoo af soomaaliga dib ugu noqda talow maahmaahde ku habboon maxaad ku tidhaahdaa dadka kan halkaa ka bilow hadhowba haddana yidha halkaasi kuma fiicne ka daayo intan ku bedel maanta oo dhan maxaa maskaxdaada ka guuxaya waxa ka guuxaya waxaad odhan lahayd
qof bini aadama oo la kulmaya koox bini aadamka ka tirsan ayaa wuxuu xisaabtamayaa alfa xisaab hay-adiisii iyo wuxuu ku hadli lahaa iyo suu dadkan u qaabili lahaa buu intaasoo goor muraajaca isku samaynaya. waxa isweydiinta leh qofka muslimkii marka uu caqiidayste uu rumaysan yahay inuu ilaahay ishortaagayo muxuu markaasi ka fakeraya? salaadu waa maxay? waxaad rumaysantahay allahu akbar markaad tidhi inaad caalamkii oo dhan ka baxday, inaad ku tala jirto inaad ilaahay ishortaagto, ilaahay intaad ishortaagto weliba inaad la hadasho, intaad la hadasho weliba inuu alla kuu jawaabo subxaanahu watacaala siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay axaadiista saxiixa aad taqaaniin. xadiiث الqudsigii muxuu nabigu tilmaamayey? ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanaه watacaala qasamtu الصalaaةa baynii wa bayna cabdii, salaadan waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkayga baa ilaahay leeyay subxaanaه watacaala, oo midkaayaba nus buu leeyay baa ilaahay leeyay. dabeetana ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanaه watacaala markuu addoonku yidhaha alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markuu bilowdo in ilaahay uu la hadlayo oo uu odhan doono xamadanii cabdi, addoonkayba i mahadiyey. alraxmaan alraxiim markuu yidhaahdo in ilaahay odhan doono asnaa calaya cabdi. maaliki ywmi اddiin markuu yidhaahdo inuu alla odhan doono majadanii cabdi. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu yidhaahdo in alla ku odhan doono taasi waa aniga iyo addoonka iyaga kii noo dhexaysay. inuu markuu yidhaahdo ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim, weedhahan u fiirsa maxay yihin? weedhaha kani ilaahay baa wuxuu kaa kafaalo qaaday marka aad isaga la hadlayso waxaad odhan doonto. waxba maahmaaha soo qoran, waxba hadal kale ha isku soo duwin. ilaahay baa kule weliba anaa ku baraya sida layla hadle kaalay oo waxaad ku bilowdaa ammaantayda, dabeetana waxaad sheegataa waxa aad wax igaga helayso inaad aniga keligay caabuddo, keligayna iga kaalmo dalab. marka hore ilaahay baad ammaanaysaa inta hore o dhan, inta dambe inta dhexe waxaad sheeganaysaa waxaad ilaahay wax kaga doonayso, oo waxaad leedahay iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin, iyaaka waxdak, keligaa ilaahay baanu ka caabudaynaa, keligaa baanu kaa kalmo dalbaynaa. markaad alle ammaantiisii dhammaysay ee aad qadimatay shahaadaadkaad wax ku doonaysay ayaad ilaahay waxaad weydiisanaysaa waxaad rabtay. markaa ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin. waxaan leenahay qofka mu'minkii wuxuu in badan ka fakerayaa ilaahay inuu hortagayo. markaad habeen madow istaagtee weysaysato ee iyadoo dadku hurdaan aad salaad u kacdo ee aad ku tala gasho inaad ilaahay la hadlayso ee aad weysadaysa soo nadiifisay isa soo qurxisay, qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. war quruxdiina qaata markaa masaajidka tegaysaan, markaa salaada tukanaysaan, waayo ilaahay baad qaabilaysaa, aad doonaysaa inaad la hadasho. dabeetana waxaa lagu yidhi markaad salaada u kacaysid quruxdaadoo dhan soo samayso, waayo waxaa tahay qof ku tala jira inuu alla la hadlo subxaanahu watacaala. waxaynu leenahay ilaahay baa wuxuu leeyahay aqimi salaata lidikri. salaada maxaa loo oogaya? inaad ilaahay xusto subxaanahu watacaala darteed. waxaynu leenahay qofka muslimka ahi saacaad buu leeyahay caalamkan uu ka baxo. muslimiintii hore saacaadkoodaasaa waxay ahaayeen saacaad dhab ah, dabeetana saacaadkaasi marduud bay ka heli jireen nolosha in alla u fudaydiyo ay wax badan ka qabsadaan. laakiin muslimka maanta jooga waxaad moodaa in badan saacaadkanina inay ka mid tahay 5 miridhoo inta la forfoorsado dabeetana laga baxo masaajidka. 5 miridhoo aad moodo uun in dadkaba lasoo qabtay una meesha xabsi lagu ururiyey intay ahayd salaamu calaykum marka la yidhahdana sidii wax wala la kala yaacawn. 5 miridhoo aad moodo qofku inuu culaysba dareemayo, wallahi salaadii weli maan tuko kaanamaa culays inaga ridaya inaga saaraya ay ku tahay. waxay leenahay waxaa kala gedisan xalaawatu liimaan sida iyagu u dhadhaminayeen salafil umma iyo sida dadka kani u dhadhaminayo. waxaan leenahay wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saacaadkiisaasi markuu ilaahay sortaago saacaad aad u cajiiba bay ahaayeen. xadiidka imaamu abu daawuud uu warinayo albanina uu tasxiixinayo wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam axadi صaxaaba can maطrif can abiih ayaa wuxuu leeyahy ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam yusalli wa fii sadrihi aziizun kaaziizi الraxa min albukaa.
waxaan arkay ibuu leeyahay nabiga tukanayo laabtiisa ay u guuxayso sida raxaaga yani waxa cajiiba nasaa'ina wuxuu leeyahay walijawfiha azizun ka aziz almarjal imam ahmad iyo tirmidhi way wariyeen ibn xabbaan iyo ibn khuzaymah way tasxiixinayaan waxay riwaayaadkaasi ama xadiistaasi tilmaamayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu isu taago in guuxa laabtiisa xataa la maqli jiray sida alle u weyneynayo uga cabsanayo subxaanahu wa tacaala waxaa kuba laynoo tilmaamaya hadduu rukuuco leh allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wabasarii wamukhii wacadamii wacasabii u fiirso erayadatan waxaa addoonku qiraya u leeya ilaah waxaa kuu khushuuco isu kaa dullaynaya maqalkayga iyo araggayga iyo dhuuxayga iyo maskaxdayda iyo dareenkayga oo dhan markaad erayadaa ku hadlaysa xaggaad jiri karta adigoo ilaahay caynkan ula hadlayo waxaan ku hadlaya waxaynu leenahay waxay ahaayeen aan qisa idiin wariyo waxaad garan kartaa saxaabadu noocay u fakeri jireen qisadatan waxaa soo wariyay imaamu abu daawuud iyo imaamu axmed iyo alxaafid albayhaqiy fi dalaa'il الnubuwa shaykh alalbanina abi daawuud ku taxsiininaya ibn khuzayma ibn xabbaan iyo xaakimna way tasxiixinayaan qisadu maxay tahay ghazwatu dhat الriqaac dagaalkii loo yaqaanay dhat الriqaac wuxuu ahaa dagaal saxaabadu ay galeen xadiidku waa min xadiidi jaabir ibn cabdillaah dagaalkaa markii laga soo noqday ghazwaadkii nebigu u galay mid ka mida markii laga soo noqday ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay degeen meel laba buurood waddo yaroo usoo dhaxayso ka soo daadegsan ayaa la degay laba saxaabi ayuu nebigu yidhi gaadh qabta labada saxaabi siduu sheegaya saaxibu dalaa'il الnubuwa albayhaqi mid wuxuu ahaa camaar ibnu yaasir oo muhaajiriintu ka tirsanaa midna wuxuu ahaa cabaad ibnu bish oo ansaar buu ka tirsanaa labadaas saxaabi ayuu nebigu wuxuu u diray inay gaadh qabtaan dabeetana gaadhka waa la iska yaro nasinayay oo midba mar buu yaro jiifsanayay muhaajirigii ama camaar ibnu yaasir baa jiifsaday waxaa gaadhka markaa ku jira cabaad ibnu bashir cabaadna markay nisfu leylkii unbuu salaad buu galay waxaa jiray dagaalkaasi markii laga soo noqday nin gabadhiisii saaxibu zaadi almacaad iyo saaxibu cawni almacbuud midba qisada sibuu sheegaaye gabadhiisii ama wax la yeelay ama kuwa lasoo qafaashay ka mid ah dabeetana wuxuu ballan ku qaaday inaanu madaxiisa biyo marin oo aanu hadhin dhiig muslima u daadiyo mooyaane waa nin gaalada ka tirsan waa gaade markaa ciidanka muslimiinta daba socda oo gaadaynaya oo ku ballan qaaday dhiig muslima uu qobo mooyaane inaanu dib u noqonin ninkii gaado ahaaba wuxuu wax ilaashadaba wuxuu arkay labadii saxaabee gaadhka ahaa oo midna hurdo midna salaad ku jiro kii salaada ku jiray buu markaasi la soo gaaday gamuunkiisii qaansiyo leebkiisii buu la soo gaaday dabeetana wuu ku ganay way mudday gamuunkii koowaad cabaad ibnu bashir salaadiisii buu iska watay warana waxaana ku yaalla fallaadh kii labaad buu u xidha markaasuu ganay kii labaadna wuu muday cabaad ibnu bashir salaadiisii buu iska watay kii saddexaad buu u xidha kii saddexaadna wuu muday dabeetana waxay gaadhay inuu rukuuco oo uu sujuudo saxaabigii hurday baa markaa mawqifkii wax dareemay dabeetana wuu kaca wuxuu arkay saaxiibkiioo dhiigu da-ayo oo 3 fallaadhood ay ku yaalliin iyo ninkiioo baxsadoo dhuuntay gaalkii markuu arkay in la dareemay isagu ballankiisii ogtay dee uu iska dhabar jeediyey mar hadduu 3 gamuun rido 3 daba la helay wuu iska tegey camaar ibnu yaasir baa la hadlay markaasi cabaad ibnu bashir markaasi wuxuu ku yidhi subxaana allah alaa anbahtanii awala maa ramaa subxaana allah yani litacajub buu isticmaalaya ilaahay baa xumo ka hufare war maxaad iigu sheegi weydee ii
ii dareensiin weyday markii ugu horreysay gamuunku kugu dhacay buu yidhi markii uu gamuunka koowaad ama leebka koowaad markuu kugu dhacay war maxaad wax iigu sheegi weyday buu yidhi sidaasan u yeeshay bal u fiirso hadda jawaabtatan kuntu fii suura aqra'uha falam axib an aqطacaha buu yidhi waxaan akrinayay buu yidhi suurad saaxibu dalaa'il الnubuwa bayhaqi wuxuu leeyahay kahaf buu akrinayay waxaan akrinayay buu yidhi suurad waxaanan necbaystay inaan kala gooyo anigoo ilaahay la hadlayo taagan oo salaad ku jiro suurad qur'aan akrinaya gamuunna igu dhacaya inaan u jeesto dhankoodaan diiday buu leeyahay oo waxaan sidhi qur-aankaaga marna ha kala goyne wad wuxuu dareemayay markaa qofka kani caqligiisu si xagguu jiray salaadiisu se maxay ahayd waxaad garan kartaa saxaabada tani markay ilaahay is hortaagaan noloshoodu noocay u ekaan jirtay marka wuxuu ahaa ninkaa gamuunada lala dhacayo ee haddana salaadiisa ku jiray isagoo ay u bannaanayd inuu wax iska celiyo haddana door bidee kule waxaan diidayey culamo badh baa weliba waxay leeyihin waxay masaladani daliil ka tahay bay leeyihin qofku hadduu go'aansado sida tan cabaad inuu yeeli karo mar haddii aanu nebigu ka nahyin intay qisadu gaadhay saxaabigani saasuu yeelay waxay leenahay waxaa laga yaabaa inay idinku tidhaahdaan ma nin nabarre ku yaaliin oo 3 gamoon ku yaaliin baan waxba dareemaynin dadka maanta jooga caalamka maadiyaadka rumaystaan aan qiso yar oo kale idin naqliyo الدكتور محمد علي بار حفظه الله ودكتور مسلم معانا وكتابه بدن له فنجي ساد وفي عنه ayaa wuxuu qoray kitaab la yiraahdo al-mukhaddarat wal kitaabu magacaasi leh oo kaga waramayo mukhaddarat markaas wuxuu qorayaa uu leeyahay waxa jira buu yiri cilmi cusub oo maanta dunida ogaatay oo la yiraahdo buu yiri morfinat ad-dimag wal jihaz al-asabi morfin waa morfinta dabashan la yiraahdo afka ingiriiska ba waxaan wax lagu suuxiyo ama lagu sakhraamo ama caynkana la isticmaalo waxa jira buu yiri waxa imika u bixiyeen morfiinkii ama suuxiyayaashii maskaxda iyo nerfaska qofka bini'aadamka oo aan cilmiga bini'aadamku hore u aqoon buu yiri 1973 kiiba fikradeeda koowaatimi buu leeyahay hore looma aqoon 1973 wixii ka horeeyay ilaa hadda 200 oo maado kamida la daraasay buu leeyahay 40 kamidana waa la gartay taasiiraadka iyo waxay sameeyaan mawaadatan shirka bini'aadamka soo saara shirka qofka bini'aadamka iyo maskaxdiisa dheecaana soo daaya dheecaanada soo suuxin kara bay leeyihiin qofka bini'aadamka shirkiisa ka suuxin kara inuu alam tira badan la dareemo inuu xanuun tira badan la dareemo qofka dheecaamadaasi markay ku bataan bay yiraahdeen wuxuu aad u dareemaa saada iyo raaxa iyo tamaaniina iyo deganaansho waxa ka yaraada bay leeyihiin waxa loo yaqaan stresska iyo qalqa iyo waxan warwarkan tirada badan la iyo waxa kan way ka yaraadaan bay leeyihiin qofka dheecaamadani ku bataan dheecaamadani waa dheecaamo maskaxda iyo jidhku soo daayo ilaahay ugu tala galay waxay yiraahdaan waxay ku badan yihiin had iyo goor oo minha ilaahiya ay tahay ilaahay uu siiyay subxaanahu wa ta'ala inuu jidhku soo daayo gaar ahaan dumarka baa la yiri markay uurka leeyihiin ilmuhu waa dhib biiran laakiin dhibta ama xanuunka badan ee ilmuhu ku hayo waxa dumarka ilowsiye bay leeyihiin jidhka wuxuu soo daayaa morfinatu dimaaqa waxaan la yiraahdo dabeetana nooc min anti bayna weeyaan oo ilaahiya waanay gabadhu xoog u dareemaynin ilmaha iyo dhibtiisa waliba waxay ku sii badataa buu dhakhtarkaasi leeyahay hooyada marka ay foolanayso foosho aad bay u kulushay laakiin haddaanu morfinatu dimaaqaasi jirin buu leeyahay gabadhiba ma foolateen manay aqbasheen mar dambe inay foole ka timaado ee waxa xanuunka oo dhan u fudaydiya ee u sahla maskaxdu dheecaamada nooca kale ay soo deynayso markaasi wuxuu leeyahay waxa kale oo la ogaaday jaynisku maanta waxa la yaqaanaa dadka intay dhigaan tiyaatarka wax lagu qalayo in irbada yar yar lagu mudo dabeetana iyadoo aan la siinin waxa wax lagu suuxiyo dhan in qofka la qali karo waxa la ogaaday buu leeyahay irbadaha kan meelaha gaar ay ku mudaan inay tahay awaamir la siinayo maskaxda iyo neerfayaasha inay soo daayaan dheecaamada nooca kana si qofka kari uu suuxi karo iyadoo aan wax khaarijiya lagu mudin oo ay suurtagal tahay bay leeyihiin inta looga yeedho jirkii dheecaamadaasi inay si dhaqsaa u soo daayaan dhulkii soo daynayay in qofka la qali karo iyadoo wax irbada lagu mudin wuxuu leeyahay waxa kaloo la arkay
dadka intay ku bataan waxyaabo badan inaanay dareemi karin markaasuu leeyahay lacalla waa qowlku qorayo sheekhaas waxa laga yaabaa buu yidhi qofka markuu wax la dawaqo inay ku bataan xataayo waxa suurtagala buu yidhi sawaaxibu yuusuf waxay fartay goynayeen u dareemi waayeen akhaad waxa ku noqotay buu leeyahay quruxdii yuusuf ilaa ilaahay yidhi falamaa ra'aynahu akbarnahu waqatacna aydiyahunna alla yidhi si kasta ha noqotee wuxuu leeyahay waxa kaloo la hubiyey mawaadani inay ku badato dadka cibaadada badan leh kuwa quraan akhriska badan leh kuwa alle xuskiisa uu ku badan yahay kuwa maxabad badan u haya inay ilaahay la kulmaan waxa ku bata buu leeyahay dheecaamadatan oo kuma dhacaan xanuunada stressiska iyo waalida iyo waxyaabaha kan dadka gaaleeda ku aragteena ku badan sababta ay ugu dhici waayeen waxa weeyaan buu leeyahay cibaadadan ay cibaadaysanayaan baa waxay ka helayaan biologically waxay ku degaan oo nafsiya oo aan problemkani ku badanin waxaynu leenahay ahlu tawaariikhna waxaabay wariyaan qisa ay imaam ali ibn al-Husayn ka sheegaan Zayn al-Abidin baa waxa ku dhacay bay dhaahdaan waram ama wuu bararay xanuun baa ku dhacay dabeetana dhakhtar baa damcay inuu qalo wuxuu yidhi bunji cab bunjigu waa baashan bunjiga dee la yidhahdee waxaan wax lagu sakhraamiyo mid ka mid ah bunjaan ku cabsiinaynaa buu waa ku suuxinaynaa dabeetana waa ku qalaynaa su'aal buu weydiiyey baa la yidhi wuxuu ku yidhi bunjigu caqliga miyuu dooriyaa haabay ugu jawaabeen yeeli maayo buu yidhi anigu caqliga doorin maaye salaad baan gelayaa markaan alla is hortaago fafcaluu maa badaa lakum buu ku yidhi bay yidhahdeen anigu markaan ilaahay is hortaago waxa idinkoo idinla noqoto markaa yeela waxay yidhahdeen jaraaxada waxa lagu sameeyey bay ahli taariikh wariyaan Zayn al-Abidin isagoo salaad tukanaya jaraaxa lagu sameeyey ama nabarkiisii la qalay sababtu waxay ahayd ilaahay markuu hor taagan yahay midiyahan yar yar iyo waxa wuxuu dareemayay ma ahayn yani qolada maadadu ka xoog badatay ama gaalada iyo warkooda ka xoog batay waxa laga yaabaa inay islaam qof saddex waran ku dhacday ayaan hadana dareemaynin oo salaada ku jiray haabaan leenahay waa ficlan qisas xaqiiqiya oo adilla saxiixa ama xasana ku sugan oo tilmaamaya saxaabadii nabigu intay ilaahay soo taageen in gamoonna ku dhaceen oo aanu mar qura salaadiisii ka bixin oo wadin waxaan leenahay waxa hubaala dadkaasi mu'miniinta saacaadkoodan aynu rabno inaynu ka warranno inay hayeen saacaadka nolosha oo dhan u fudaydin jiray wa saacaad qofku waa la gaar u noqon jiray subxaanahu wa tacaala wa saacaad aad ka dareemaysa dhaqankoodu siduu ahaa markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xanuunsaday xanuunkii u dambeeyey uu ku geeriyoon doono ayuu caaisha la hadlay waa xadiiska imaamu axmed abu daawud iyo ibnu xibbaan iyo tirmidi baa warinaya tasxiixinayana tirmadaana saxiix ku sheegaya wuxuu la hadlay caasha dabeetana wuxuu ku yidhi abaabakar waxaa fartaan dadka inuu tukiyo nabigu wuxuu leeyahay caaisha abaabakar waxaa fartaan inuu tukiyo dadka caaisha markaa hadashay oo arrintaasay muraajaca ka keentay hadal bay ka soo celisay sababta wax kastaba ha ahaato caashi waxay la kahatay aabaheed inuu dadka tukiyo dabeetana waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ina abaa bakra rajulun raqiiq laa yamlik damca cilladay sheegaysaa waa maxay abubakar dadka iyay tukinin bay leedahay ina abaa bakra rajulun raqiiq abubakar bay leedahay waa nin aada u jilicsan looga jeeda abubakar golaha rag isku haya markay tahay nin jilicsan ma ahayn abubakar wuxuu ahaa ninkii keligii mawqif qaatay taagnaa ayunqasu diinu wa ana xay taagnaa ee lahaa warma anigoo nool baa ilaahay diintiisa wax laga goynaya lahaa ummadda oo dhan hadday ii diidaan ciqaal ama cinaaq ama dabar ay nebi maxamed siin jireen calayhi salaatu wasalaam oo kula dagaalamaya ninka salaada iyo zakada kala farqiya waan la dirirayaa lahaa keligii lahaa haddaa iska wada hadhaan keligay baa dagaalamaya mawqifka ah buu qaatay abubakar inuu keligii ka hortegi karo mujtamaca dhammaantii
أبي بكر موقف كأبو قاطع المسلمين تيدو نبي عدبا الرومينين عليه الصلاة والسلام إنه الروميو كالي وقرقاره وأن مواقف تنالوليد ميل أدق اسكتاقي شري لكن مركي تمادا أرنتو حق الله سبحانه وتعالى يا عبسديد وحوها نناد قلبي يوسوش لحسين الرقيقة وفآد الدبعسا ولذلك بقى عائشة وحي لذي إلهي الرسول كيسيو أبي بكر واننش لحسن ولا يملك دمعه المدي سماه سنكره وإنه إذا قرأ القرآن بكى هدو قرآن أخرينه يا يدتك يعني مملوغا دقن بيلاغي يعني دتك هدو سلادة تكيه أبي بكر واننش لحسنه يا والمدي سمح سنكره مركو إلهي كتاب كيس أخريه إمام ماذا هلا قد دايو مركز النبي عليه الصلاة والسلام كديدي وحين الله أنه يوحلت المامة إمام بخاري وحورنا يا سعيد بن المنصور يا ابن المنذر انتبه عمر إنه الصلاة صبح إنه صلاة صبح دتك تكيه وأخريه سورة البقرة مركو سوق علي هذا الكلام لله سبحانه وتعالى يسوى يعقوب كورميه إنما أشكو بطري وحزني إلى الله أي وحلي الراوي حديثك فصمع نشيجه وحل مقلبه لي قول حيوه انتي عمر يعني وكبدن هي وحي نكوبي كرنضت كان السيدة هاي ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصبع وحكو شيئية حديث كآت كوقيمها بضنا كور رميت تضبط عرش الرحمن كهرسان دونه أما اللي هو سكيس تضبط هرسان دونه ما انت قيامه حديثي شيء ما انت عد سور دواتي ددك نفسه سقط ما دد تضبيه وكنا بدغلي دونه تضبط waxa kamid ah ayu nabigu leeyahay عليه الصلاه والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه nin xusay Allah subhanahu wa ta'ala isagoo kaligiya dabeetana ilmadu daaday buu nabigu عليه الصلاه والسلام todobada maanta qiyaamad dadku mowqifka xisaabe taagayin iyagoo hadhka hadhsanaya waxa kamida ku ilaahay intuu xusay ishiisa ay ilmaysay sida daraadeed baa wuxuu nabigu inoo tilmaamay عليه الصلاه والسلام xadiidka imam muslim iyo abi daawud ba warinayaan إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع والنبي يقول عليه الصلاة والسلام متكين هدوقعه وهبينكي صلاة كده دبتنا قرآنك عربكي سوقات كده وقروا يوحق هضليه معناه ميشا كوشرا محيا قفك مسلم كي مركو تكرا يينو اسكد يوحانو كو هضليه يينو فهمه هذا رب الصلاة دينا تكون خشوعه وإن أدوغاتا وحنا كو هضليسو إيا عد الله هضليسو marka aad garato waa cid maad la hadlaysaa iyo maxaad ku hadlaysaa waxaad garan kartaa markaas qalbigaagu inuu soo jeesanayo aad khushuucaysid waxaad ogtay inaad alle la hadlayso subhanahu wa ta'ala waxaad ku hadlaysaa baryadiisa iyo amaantiisa inaytay saadaradeed qofka qalbigiisu uu noolaanayo uu soo jeedaya haday dhacdo mesela inta salaatu leeyl tukatay in hurdadu ka xoog badatay inaad fahmi kari weydo waxaad ku hadlayso nabigu wuxuu leeyahay عليه الصلاه والسلام waxba salaadna hasiitu kana iska seexo wayaarinku wuxuu ahaa qofku inuu ilaahay xuso amaano ishartaago la hadlo laakiin haday taasi ka maqantay buu nabigu ku tilmaamaya oo ay kugu adkaatay inaad fahamto waxaan aad ku hadlaysay oo aad garan weydo buu fahmi weydo waxa aad leedahay faliyadajj buu nabigu leeyahay عليه الصلاه والسلام ha iska jiifsado qofkaas waxaan jeclay waqti badan baa fadhideen inaan idin daaliyana ma jecli hadalka inta badani inta horuma inta dambe masaxday waxaan jeclay message-ka inaan idin dhigo aan idinka masaxmin oo aan soo koobo in ka badan intan waa laga hadli karaa laakiin aan koobo baan jeclay waxaan leenahay qofka muslimka ah marnaba maskaxdiisa waa inaan ka bixin Allah subhanahu wa ta'ala iyo weynidiisa haday taasi degto noloshoo dhami way u fududaataa quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa qaar lagu yiri inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum لكن كنت جوابي حسبنا الله ونعم الوكيل ويندا الله أي قلبي قود الدكتي دبتنا وحي الرميسين إن الله لقوي عزيز والله غالب على أمري وحي الرميسين أود الله هدي استمداد كهلان كتير صدان وحد بيانا نشرين وحا قرآن كينات المامية إنه إن بدنوا في رسنا موقف كينا قدم بيا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
sidee baan u ooyin qofka ilaahay leeyahay maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaara waqad khalaqakum atwaara maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaara maxaa la-aantiina u rajay weydan alle subxaana wa tacaala weyne a weynaynaysaa isagoo ilaahaydan abuuray atwaar tawrin bacda tawr waxaan leenahay qofka muslimkii ilaahay weynidiisa markuu xasuusto wuxuu garanayaa qur-aanku wuxuu ka sheegay ilaahay baa wuxuu leeyahay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alard watakiru ljibaalu hadda an dacaw liraxmaani walada ilahay wuxuu tilmaamayaa weynida alle markay qaar bini aadamka ka mid iska hadlaan ee ay sheegaan waxyaaba aan loo baahnayn oo ay ka mid tahay waxyaaba badan oo aan loo baahnayn oo ay ka mid tahay maalan inay ilaahay yidhaahdaan baa walad iyo wax la nooca in cirkan iyo dhulkan iyo samaawaadkan u ku dhowaadaan inay kala googo-aan oo buuruhu dumaan hadalkaa bini aadamka foolxumadiisa markay maqlaan baa ilaahay leeyahy waxaa alla inoo tilmaamaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu yidhi ilaahay waan ku arko ilaahay wuxuu ku tilmaamay walakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurtu inay dildilaacday alle subxaana wa tacaala weynidiisa markay aragtay waxaa alla inoo tilmaamaya amase waxaynu leenahay sidee baanu qofka muslimkii u ooyin oo u ilmayn oo u guuxin isagoo akrinaya alle subxaana wa tacaala hadalkiisii isagoo ilaahay la hadlaya iyadoo aynu ognahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa inuu ibnu mascuud yidhi igu akri qur-aanka oo uu nebigu uu ibnu mascuud ku akriyay suuratu nisaa oo markuu marayay fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid waji'na bika calaa haulaai shahiida uu ku yidhi qaala xasbuka laan markaasaan eegay buu leeyay ibnu mascuud nebiga oo waxaa arkay iyadoo labadiisa indhood ay ilmaynayaan xadiidka shaykhaynkaa warinaya waxayn leenahay kaasi waxa weeyaan xaalkii ambiyada iyo alcaarifiina billahi alawliyaai saalixiin kuwa alle garanaya caarifiin billaahi ah ee awliyada saalixa ah ee wanaagsani waa kuwaasi waxayn leenahay cusuurteenna waxaa soo yaraaday dadka saacaadkan alle la leh dadka qaabkan ilaahay ula hadla dadkii muslimiintii hore waxay ahaayeen dad noocaas iyo miyir beela waxay ahaayeen baanu odhan karnaa dad zurara ibn alawfa oo qaadi bisriya taabiciya ayaa wuxuu maqlay ama si akhriyay فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصير ودعي بالله يراهدا دبتنا سيدي بين نفسك كبحضة دبوا بصاكعين وحنا دوتش على هاي إن كلمة واحدة يراهدا كلمة دا سوحي هاي الصحابة دي النبي كوا النبي مركي دقيتني أنا عليه الصلاة والسلام وإلهي حصوصيه كوا المية بي هاي إلا حدا دو ذكرنا إنسان حديث كيكو يالي 40 صحيحها عرباض بن الصاري أولها وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعده ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وكنت المامي يعني سيتأثر كودي يتبدل كود وكل عي أني يردب حصوصا إنه نبي يقول لبا إندوت نار مطابة مالك قيامة إلا الله حصوصته ويدي إيا إلا لنساء مدى مسلم كاه oo ah front line ka u taagan oo ribaad ku jirta oo ilaalinaysa dadka muslimiinta ah waxaan leenahay ummadda muslimiinta ha noqdaan dad adooma alla u shukrinaka wa qalilun min ibadiy ash-shakur ba ilaahaynaye waxaan ku soo koobaya maraday saacadii cunadu bilaabantay inuu ilaahay yuhuud ku tilmaamay wama qadarullaha haqa qadri waxay la xumaadeen waxa weeyaan allaanay weynayn weynidu xaqa u lahaa dadka muslimiinta ah oo dhan waxaan ugu yeedhaya oo aan naftayda ugu horraysiinaya inaynu alle ka cabsanno subxaana wa tacaala weynida uu xaqa u leeyahay inaynu weynayno inaynu isku dayno nolosheenna inaynu ka helno saacado nolosha inta kale zaad inoogu noqda waxaa hubaala saacadahaasi haddii la helo in ilaahay tallaabooyinkeenna saxayo murugada badan ayna haysata inaga qaadayo dhibta badan aynu ku jirno solution in loo wada helayo kelimadaydu waxay ku koobantahay marka salafil umma haddaynu rabno inaynu soo noolayno waxay ay rumaysnaayeen waa inaynu kala soo rumaynaa suluugoodii iyo dhaqankoodii qaab nololeedkay u dhaqmayeen ay ilaahay ula xidhiidhayeen